السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلنتو عنيد لهانتين بداودي الميل كستو جوجتان كنا سو دوادا وركي رويال ان كغا سو تبيي استوديو سمغالada لندن madaxweynihii hore maamul goboleedka Puntland General Adam Muuse ayaa waxa uu sheegay in Puntland aysan ka bixi karin dawladda dhexe ee Soomaaliya isagoo hoosta ka xariiqay in la xaliyo khilaafaadka jira balse la dhowro midnimada Soomaaliya arintan ayaa dhawaan soo baxday markii dawladda Puntland ay ku dhawaaqday in ay ka gooday dawladda dhexe ee Soomaaliya iyadoo dawladda federaalka ee Soomaaliya aysan wali arinkaasi ka hadlin warbixin arinkaasi ku saabsan Yaxya Nuur Muumin ayaa qarda ka soo diray madaxweynihii hore ee Puntland General Adam Muuse ayaa sheegay xilli uu ka qayb galay xaflad ay qabteen ardayda wax ka barata jaamacadaha dalka Masar oo kaashanaya ururka qalinjabiyaasha adduunka ee jaamacadda Al-Azhar xafiiskiisa Puntland in ay Puntland ka mid tahay dawladda federaalka Soomaaliya madaxweynaha oo halkaasi ka hadlay ayaa waxa uu yiri annagu federaalka waa maxay waa rabnaa maxaa jira waxaan rabnaa midnimada Soomaaliya inay midowdo oo sideedii ay ku soo noqoto ayaan rabnaa waxaan ka mid ahaa raggii aasaasay markii federaalismadan la sameynayay oo laga shaqeynayay waxaan la joogay Cabdullaahi Yuusuf iyo Geedi dawladdii u horeysay iyo guddiyadeedii baan ku jiray oo in federaalka la sameeyo federaalkuna waa dan baa noogu jirta waa qabaa dawladdu Puntland wax badan bay ka qabatay in federaalku uu socdo marka wixii iskhilaafana in laga tago laakiin Puntland waxay ka federaalka waa ku dadaalaysaa federaalkana waxaan ka rabnaa waxa yagi waana madaxweynihii hore ee Puntland General Adam Muuse ayaa sheegay dawladda federaalka Soomaaliya dhismaheedii ay kaga bixisay ku meel gaarnimo in Puntland ay ku lahayd gacan weyn xilligaanina looga baahan yahay taakuleemaha kala duwan ee caalamka laga helayo in Puntland ay ka hesho xuquuqda iyo xaqa ay ku leedahay deeqahaasi waa doctor hadda dhibaato badan baa wadanka socota anagu insha Allah waxaan rajaynaynaa inay nabad Puntland ku soo noqoto la tartantana Soomaaliya maantay marxaladda ay maaymayso inay tartankeeda iyo kaga jirto dawladda federaalkana waxa leeyahay iyaga isku koobin xamar kaliya xaq xuquuqda ay leedahay Puntland waa inay siisaa hadalkani ka soo yeeray madaxweynihii hore ee Puntland General Adam Muuse ayaa waxa uu imaanayaa xilli maalmo ka hor madaxtooyada dawlad goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland uu ka soo baxay war-saxaafadeed lagu shaaciyay in Puntland ay ka gooday dawladda federaalka Soomaaliya si kastaba ha ahaatee shacabweynaha reer Puntland ayaa ilaa haatan laga hayn afkaar israacsan oo ku aadan dawladda jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya taasoo cadeynaysa dawlad goboleedka Puntland inay ka gooday federaalka iyo in kale Yaxya Nuur Muumin telefishinka caalamiga ah Royal hoolka beeyada ee magaalada Qardho.